Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal. Mar kale isku soo laabad wanaagsan waa kanaalka Nodaan oo aad kaga barateen cashar ku baxa afka Soomaaliga. Maanta waxaan qaadan doonaa saddex muuqaalka khiyaanooyinka WhatsApp. Insha Allah waan guda galnaa casharka. WhatsApp runtii qaab fara badan oo la isticmaalayo leeyahay. Waxaan ka bilaabeynaa waxa la yiraahdo new podcast macnaheedu waxay tahay inta badan waxaan aragnaa WhatsApp-ka markaad rabto inaad dad wax u share garayso oo wax la wadaagto 5 qofood ka badan uma diri kartid. awal 20 waxay 30 laakiin hadda 5 qofood laga dhigay 5 qofood ka badan uma diri kartid salaagti ma saari kartid. Marka waxaa jira new podcast waxay tahay 200 waa group camal laakiin group maahan oo lagu sheekaysan karo. 250 qof 256 qofood ayaa new podcast group u sameynaysa. Marka groupka u sameyso macnaheedu ma aha in group tahay oo dadku ay ka soo hadli karaan dadku saar karaan maaha. Waxa way bis adiga bis arki kara waa list waa people ama waxa loo talagalay business-ka loo talagalay barnaamijkan. Markaad sameydo 256 qofood ku jirta. Marka hadii aad doonayso in dhamaantood u wada dirto information oo warbixin la wadaagto ama aad product la wadaagto waa podcast-gaas aad ku diraysaa. groupkaas ayaad soo dhigaysaa warbixintaada kadib qof walba gaaraysa. macnaheedu maahan dadku inay ku jiraan group maaha waa list bis. Marka soo sameydo gees kasta 3 dhibic saaran waa ku dhufato new podcast dheh. Marka new podcast dhahdo macaamiishaada halkan ku jira ama asxaabtaada ama dadka aad doonayso in la share gareedo select saar. Marka select saarto kadib okay dheh. Taamacada waxay tahay inaad sameyday waxa la yiraahdo new list podcast. Marka waxaad sameydaa halkan tag. Halkan markaad tagto magaca ka bedeli kartaa. Magaca doonta bixi kartaa. Waxaan leenahay marka magaca ku qoran saaran. Waa Nodaan mid kale ku qoran yahay kuma qori karo. Marka waa barnaamijkan faa'iido weyn ayuu leeyahay. Okay kaina faantina filaa sidoo kale status-ka jira mid. Status-ka hadda aniga ku dhufto muuqaalkaas runtii sawirkaas soo baxay aan soo rabo. Marka waxaan rabaa sawirkaas inaan fiirsado laakiin qofka sawirka iska leh ma rabo inuu ogaado inaan sawirkan arkay ama aan fiiriyay. Marka taas sidoo sameeyaa chat ku laabo halkaas 3 dhibic saaran tag setting-ka tag account dheh privacy dheh halkan iska xir read receipts halkaas iska xir. Marka fila inaad fahanto halkaas iska xirto macnaheedu maahan inuu qofku arkayo inaad aragtay muuqaalkiisa. Okay sidoo kale meesha waxa ku jira waxa la yiraahdo personal information. Isla baraafsan joogna personal information waxa kamid ah in la arko waqti inuu qofku arko ama qof kale arko oo soo boqo timeline-kaada inuu qof kale arko waqti ugu dambeeyay WhatsApp-ka profile photo-gaada iyo wax ku saabsan sidoo kale status-kaada. Marka waxaa leeyahay marka everyone markaan leeyahay last seen waxaa leeyahay marka no bad ma doonayo qof inuu arko waqtigii ugu dambeysay ee WhatsApp. sidoo kale profile photo ma doonayo no bad aan leeyahay laakiin hadda waa everyone is raata laga ka qaadi kartaa. About-kana ma doonayo qof inuu arko. Status-kana sidoo kale aan doonayo in arkaan contacts-kayga. Marka ayadana iska bedel oo saasmay waqti ugu dambeeyay profile photo-gaada wax ku saabsan about-ka iyo status-ka bedeli kartaa ayagana waxa dhigi kartaa shakhsiyan. sidoo kale waxa la yiraahdaa security galina security-gan isku bedelin oo on hadeen waayo wuxuu sheegayaa markii aad bedesho telefonkaada ama WhatsApp cusub aad sameysato ama aad telefonka guurto oo WhatsApp kale guurto waa uu sheegayaa wuxuu leeyahay qofkan WhatsApp-kii waa iska bedelay. marka in dadka la ogeysiiyo inaad telefonka iska bedeshay ama aad WhatsApp-kaada bedeshay oo WhatsApp kale aad sameysatay muhiim ah in dadka la ogeysiiyo. marka iska xir fadlan waa security ku jirta iska xir. sidoo kale waxa ku soo xiriirado chat sanglina. marka chat kalno mid labaad waa media visibility. macnaheedu waxay tahay haddii WhatsApp sawir lagu soo diro ama muuqaal lagu soo diro si toos ah isu dejinaya. marka waa doonin ama aad rabin waa iska xiri kartaa markaasna. waxa ku xigta la yiraahdo font size
cabirka qoraalkaada haduu yahay small data medium large marka medium ugu fiican medium ka dhigo sidoo kale language waa English kulito aniga Carabi option kala haystaa maadaama joogo wadama Carabta marka sidoo kale waxa la yiraahdo shaashada sidoo kale chat backup kan waa muhiim inaad soo cesho karto qoraaladaadii waxyaabaha aad dirtay hadana waxa ay saaraya monitoring marka waan filaynaa ka faa'iideysto insha Allah marka saas aad kana usoo kartaa insha Allah hadii la yiraahdo marka waxaan filaynaa ka faa'iideysto casharkan fadlan u share gareys xabsida kale. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.